madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa la sheegayaa inuu diyaariyey safar uu doonayo in uu ku aado dalka Eritrea. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa maalmahan soo aadan lagu wadaa in uu safar ku tago dhammaan magaalooyinka maamul goboleedyada dalka, kadibna uu aadi doono safar ka baxsan guud ahaanba dalka. xasan sheekh oo hadda ku sugan Baydhabo ayaa u sii safri doona Dhuusamareeb kadibna Garowe, waxaana safaradiisa ugu dambeeya uu ku tegi doonaa Jowhar iyo Kismaayo. ujeedka safarada madaxweyne xasan sheekh ayaa lagu sheegay inay tahay safarkii nabadda, iyadoo madaxweyne xasan uu wado tareenkii nabadda. intaas kadib madaxweyne xasan ayaa aadi doona Eritrea, waxaana halkaas uu kula soo kulmi doonaa madaxweynaha dalkaasi Isaias Afwerki. mudane xasan sheekh ayaa dalka dib ugu soo celin doona 5,000 oo ka mid ah askarta Soomaaliyeed ee farmaajo uu sheegay in halkaas loo geeyay tababar ciidan inay ku soo qaataan. dowladda farmaajo ayaa ku guuldareysatay in ciidankan oo tababarkooda dhammaystay horaan ay dalka dib ugu soo celiso. waalidiintoodii ayaa walaac xoogan qabay, sida oo ay tahayna waxaa muuqanaysa in weli ay jirto shaki badan oo ku saabsan in qaar ka mid a ciidamadii halkaas loogu tababarka geeyey ay ka dagaalameen qaybo ka mid ah gudaha dalka Ethiopia. sidoo kale warar ayaa sheegaya in qaar ka mid ah ciidankii halkaas la geeyey dayac ay halkaasi ugu dhinteen, kuwana ay la ildaran yihiin cudurro kala duwan oo halkaasi ku haleelay. waxaana laga warsugayaa sida madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu u wajaho arrintaasi.